الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال دمانتين وان idin salaamo insha Allah jimco wanaagsan. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaa saacadii ugu dambeeyay anaga hadda noo tahay oo maalinka jimcaha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu na waafajiyo saacatul ijaabada. Ilaahayna kurbadeena uu ku qaado iyo dhibaatooyinka dhan haysta oo dhan insha Allah. waa idinka soo daahay horta waxaan rabaa inaan maaragtay hal arinka yani laba shay aan ka cudur daato walaalayaal. waxaan ka cudur daarnaa waxay tahay walaalaha isoo wacayo ayaamahan ma u jawaabi karin oo wicitaankooda kama jawaabi karin sababtoo ah walaalayaal sidaa ogtihiinba hooyo mar walba hooyo waaye. aniga waxaan ahay xaas hooyaanahay maxaa la dhahayay adduunyadeydii juhdigayga ay haysto haddana qof iska maaragtay caajisanna waa ahay weli sidaan hore idinkugu sheegayba aniga marka wixii waa isku kee qaban weysay oo isku keeni waay wax walbo. marka waxaan rajeynaa inaa ii cudur daartiin insha Allah. tan kale oo ah haddii aan kasoo jawaabi waayay kommentiyada oo maaragtay sidaan horeba ugu soo jawaabi jiro kale aan kasoo jawaabi waay wallahi alcadiim bismillah videogii ugu dambeeyay maalintii aan dhigay ugu dambeysay inaan fiiriyo يعني مسج waxba inaan fiiriyo marka waxaan rabaa inaan maaragtay cudurdaarkaas iga aqbashiin runaantii waa idin jeclahay waana jeclahay kommentiyadiina aniga aad ii dhiirigelinayaan waa iska caajis ayaantan mashquulkaygan waa ziyaaday taas waaye qiso yaroo macaan badanaa inoo wada insha Allah oona farxad gelin doonta ilaahay idinkiisa. qisadan waxay ku saabsan tahay ihsaanka ayay ku saabsan tahay wanaaga oo aad samayso. waxaa dhacday waxay ka dhacday qisadan Saudi Arabia ka dhacday wiilal dhalinyaro ayay waxay go'aansadeen in ay maaragtay meel oo tuulo ah ay jaamacad ka dhigtaan. marka meeshay guriga ka kiristeen jaamacad ay galeen. wiil kamid ah maalmaha kamid ah asagoo ku lagaynayo tuuladii ku socdo wareegayo iska yani hawo iska qaadanayo wuxuu arkay naag aad iyo aad maaragtay naag waayeel ah oo ilaashanaysa arigeeda oo meel fadhido. waa yaabay oo kaligeeda ah wuxuu is yiri sidee wax u jiraan waa baxay wuxuu weydiiyay sheeg tuulada dadka degnaay weydiiyay oo dhahay aaway maamadan waayeesha kaligeeda lugaynayso aaway dadkeedii awlaadeeda. waxay u sheegeen marka magaalada dadka degnaa tuulada in aysan lahayn wax ehel ah oo aysan qabin cidna awlaadna aysan dhalin. wiilkii subxaanallahi caloosha xanuuntay qalbi wanaagsan ilaahay siiyay dardaaran waalidna waa qabay wiilkaas oo aad iyo aad u wanaagsan. wiilkii wuxuu sameeyay maalin maalmaha kamid ah islaantii u tagay maamadii waayeesha ahayd uu salaamay. markuu salaamay kadib wuxuu yiri xaaladaada ka waran. waa warwareystay marka iswareysteen ay sheekaysteen cabaar kadib wuxuu yiri rajada adduunka aad ka leedahay macnaha maxaad jeclaan lahayd in lagu sameeyo ama ahshid ama aasameysid. markaasay tiri aniga waxaan jeclaan lahaa in aan ma aragtay Maka iyo Madiina soo arko aniga riyadayda ugu weyn uguna dambeysa taas waaye mana aadi kari maxaa yeelay aniga muxram ma haysti. wiilku aska soo tagay habeenkii isagoo gurigiisa jooga uu fakiray wuxuu ku fakiray sidoo maamada riyadeeda ugu rumeyn lahaa. maxaa isleedahay wiilkan qalbigiis bay ku soo dhacday. Allahu akbar. wiil yar oo dhalinyaro ah oo jaamacadii hadda dugsi sare ka baxay oo jaamacadii hadeertaan ay u tahay subxaanallah. wiilkii waxaa qalbigiisa ku soo dhacay inuu guursado maamadan waayeesha ayeeydiisoo kale ah liajli yani maxaa yeelay wuxuu rabaa in riyadeeda uu u rumeeyo uu geeyo xajka iyo maaragtay cimri iyo xaj ay soo gudato oo ay tagto masjid rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam ay tagto. ilaahayow rabbi allahumma aktub lana ya rab ilaahayow noo qor ya rabbi xaj iyo cumro soo noqnoqota allah noo qoro. intii tagtayna allah u ziyaadiyo inta aan tagin oon aniga kamid ahayna ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa inuu noo qoro iyo intii dhageysan doonto insha Allah. Allahumma amiin laha. wiilkii wuxuu u tagay sheekhu wuxuu yiri sheekhow maamadaas waayeesha ah ayaan maaragtay arkay oo saasayna igu tiray anigana waxaan rabaa riyadeedina u rumeeyo oo ka waran hadii aan guursado hadda si aan maaragtay muxram ugu noqdo oon u geeyo xajka kadibna markii aan xajka iyo cumrada ay soo dhamaysato danaheeda aan keen xaafadeedoon furo. markaasuu yiri waa amal aad iyo aad u wanaagsan waadna sameyn kartaa wuuna ku dhiirigeliyay sheekha. kadib maamadii uu u tagay wuxuu ku yiri
idhageyso waxaan rabaa si aad ma aragtay riyadaada u hesho in aan ku guursado xajkii cimrada markaa soo guudid kadibna aan ma aragtay kala tagno diyaar ma u tahay markaasay tiri haa waana kaaga mahad celinayaa maamadii waayeesha ahayd iyo wiilkii yaraa ee ardayga ahaa sidii uu ma aragtay guurkoodii ku dhacay oo waxay ii sheeg aaday xajkii cimrada markay soo qalbi qabowsatay ay waajibkii soo gudatay ay soo irtaaxday oo xaafadda uu ku soo celiyay wuxuu yiri haddaba aniga waxaan rabaa muhiimadayda ama hawshii aniga aan rabay inaan sameeyo way ii dhamaatay waxaan rabaa inaan ismaac salaameyno kuna furo markaasay tiri ha ifurin waa ku baryaa ha ifurin oo waxaan rabaa inaan ma aragtay xirigeyga iska haysatid iskana tag waxna kuma soo weydiin doono aniga waxba kaama rabo markaasuu yiri waayahay waa baxay jaamacadiisii iskaga laabtay muddo siduu jaamacadii ugu maqnaayo uu jaamacadiis markay u dhamaato kusoo laabto wuxuu yiri haddaba waxaan rabaa magaaladeydii aan ka imaaday inaan ku laabto mana soo laaban doono fadlan waxaan rabaa inaan ku furo markaasay tiri maya waa ku baryaa ha samaynin sidaas ee aniga iska kay qab magaaladaadana ku laabo hana soo laabanin haddaa rabtid anigana waxba kuuma haysto waa soo baxay wiilkii yaraa magaaladiisu kusoo laabtay zaman markii laga joogo maalmaha ka mid asagoo saaxiibadiisa la fadhiyo ayaa waxaa dhacday inay dhahaan ay ku ciyaarayo ku ciyaarayo macnaha isaga ciyaarayo foodeynayo aaway duqdii waayeesh aheed adiga aa qabtay xaaskaaga aheed wuxuu yiri wallahi mar hore iigu dambeysay mana ku laabanin marka wiilkii hadalkii duqdii wuu soo xasuusiyey wuxuu isiri warheedha duqdii xaaladeed xaggay ku dambeysay wuxuu go-aansaday يعني naxariistii baa ka badatay wiilka inuu duqdii xaaladeeda soo ogaado oo booqdo markii tuuladii uu tagay waxaa lagu yiri way dhimatay haddii aad u imaatay in aad ma aragtay wixii ay ka tagto aad qaadatid ayagoo macnaha ku jeesjeesay wiilkii yaraa gurigeedii waa kaasaa soco alaabteedii cafashkeedii qadiimiga ahaa doono wiilkii gurigii uu galay wuu galay aan dhehe ilaa cid furaysa ma lehe boorsadeedii buu furay markuu furay wuxuu arkay boorso yaroo kusii dhex jirta arkay meesha haddii uu boorsadii furay wuxuu isiri warqada kasoo dhacday warqada wuxuu isiri kolley dardaaran waaye warqadii uu fiiriyey wiilkii yaraa warqada waxaa ku qoran dhul ku yaalo meel ma aragtay jiddo ka mid ah oo qaali ah maasha allah oo ay ka dhaxashay ina adeerkeeda ayada asagaana ku qoran wiilka warqadii waa baxay warqadii uu qaatay inuu gaduuda dhulkii buu la aaday dhulkii buu yiri waan gadanayaa تخيل dhulkaas lacagta ay goysay 3 milyan oo riyaal sacuudi ah ayuu ku gaday 3 milyan oo wuxuu ku gaday 3 milyan oo riyaal sacuudi ku gaday subhanallah wuxuu soo xasuustay wiilkii dardaarankii ahaa aabihiisii iyo hooyadiisii waalidkiisa ay la dardaarmi jireen kaasoo ahaayay dadka arrimahoodii baahiyadooda u oofi iskagana tag adigoon ka suganaynin waxa mahad celin ah inay ku dhahaan abaalaa noo gashay wuu kuu soo noqon doonaa isxaankaaga ilaahay ma dayacayo subxaanallah wuxuu yiri waad mahadsantihiin waalidiintayda aabbo aad iyo aad u mahadsan tahay anigana ballan waaye inaan caruurtayda kula dardaarmo arrinkan sidan u wanaagsan wiilkan isma leheen maamadan lacag ka dhaxal isma leheen kaliya waxaan u sameeyey inay xajkii cimrada soo gudato marka walaalayaal waxaan iskula dardaarmaynaa in ixsaanka aan sameyno iimaanka islaamnimada darajada ugu sareysa waa darajatul ixsaan waaye ilaahay hana gaarsii darajadaas wax walbo khayra ummadda oo la caawiyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri qofkii inta aad ku foogan tahay ama aad ku maqan tahay dan walaalka inaad samaysid adigana ilaahay subxaanahu watacaala ayaa danahaaga ku oofinayo marka walaalayaal inaan isxaan sameyno waxay naga qaadaysaa carada ilaahay dembigana lagu dhaafayaa ma aragtay sadaqada waxaa waaye qadar shar ah soo socotay ilaah waa kaaga xijaabayaa subxaanallah waxyaabo badan ilaahay subxaanahu watacaala nooga xijaabaya sadaqada kaliya ma aha wax walbo ixsaan ah wax walbo wanaagu qof u sameysay ilaahu ma maanta qof ka qosli sida ilaahu ma aragtay talo wanaagsan oo qof walaalkaaga siisa oo ku najaxo ilaahayow ma aragtay kurbahaysay walaalka aad ka qaadid noocii doontaba ha ahaato kurba in layska qaadin asxaan laysku falo walaalayaal ma aha kaliya in lacag laysa siiyo wallahi hadalka wanaagsan lacagta kuma daaweyso qalbigaaga ma daaweyso laakiin hadalka tayyibka qofka walaalkaaga kaaga soo baxay qalbigaaga ruuxaaga uu daaweynaya
إلهي هنغا ديغو أنفع للناس إلهي هنغا ديغو وجعل الله هنغا ديغو هداة مهتدين الله هنغا ديغو قروحدي إيمانكنا الله نغو قرحيو اللهم آمين walaalyaal waxaan rabnaa inaan u duceyno aan duceysano in ilaahi subxaanahu watacaala culayska naga qaado اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم فرج هم المهمومين ونفس كربة المكروبين واقض عن دين المدينين يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الذي تشفي بها كل مريض وتذهب به كل غمة وبلاء أن تستجيبنا من فضلك دعانا وأن لا تحوجنا للدبيب يداوينا اللهم إنا نسألك نعمة تمامها والعافية دوامها وعيشا أرقده لك الحمد يا رحمن يا رحيم على نعمتك التي لا يحساها غيرك يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين walaalyaal muuqaalkan muuqaalka xiga intaan ku kulmi doono waxaa idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu fii amaan illah